إنا لله وإنا إليه راجعون waxaa aaskan qaranay magaalada Hargeysa loogu sameeyay marxuum Mujaahid Nuux Xuseen Samatar oo daad ku qaaday 4 habeen ka hor dooxa weyn ee Dacar Buruq ayaa waxa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna ku-simaa madaxweynaha Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliin xubno ka tirsan golaha wasiirada hoggaanka sare ee xisbiga talada dalka ee kulmiye qaar ka mid ah barasaabada gobolada eheladii qaraabadii asxaabtii iyo waliba mas'uuliyiin iyo madax kala duwan oo ka tirsan dawladda Allah u naxariistay marxuum Nuux Xuseen Samatar ayaa kaalweyn ka soo qaatay dib u dhiskii dalka iyo xoreyntiisii waxa uu marxuumku darajada gaashaanle sare uu ka gaadhay dawladdii Soomaaliya waqtigii aanay burburin madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna ku-simaa madaxweynaha Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliin ayaa tacsi qaran u diray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt waxaan maanta halkan u joognaa walaalkeen marxuum Nuux Xuseen Samatar oo masiin buu dhimanayaa waa sabab alla keenay daad ku qaaday dooxa Dacar Buruq oo runtii rafaad badan la soo maray raadadiisii aakhirkiisa lagu guuleystay waxaan ka tacsiyeynaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii iyo dadku ka baxay meel ay joogaan ka tacsiyeynaa iyo ummadda reer Soomaaliland soo dhantayba waxaan leenahay samir iyo maandamaantii Allah inaga siiyo xubno ka tirsan golaha wasiirada oo iyagoo ka qayb galay aaskaasi ayaa tacsiyeeyay ilaahay samir iyo iimaan haynaga siiyo Xuseen Ibraahim Samatar dhammaan qaranka Soomaaliland ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay asxaabtii cid kasta waxaan leeyahay samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo walaalkeen marxuum Xuseen Samatar Nuux Xuseen Samatar ilaahay samir iyo iimaan naga siiyo waxaan tacsiyo u tirayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo eheladii uu ka geeriyooday waxaan halkan tacsiyo uga dirayaa Nuux Xuseen Samatar iyo qoyskii uu ka baxay iyo dhammaan qaranka Soomaaliland dhammaantood waxaan leeyahay samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo ilaahayna waxaan uga baryayaa isagana inuu jannatul firdawsa ilaahay ka waraabiyo hoggaanka sare xisbiga talada dalka ee kulmiye madax iyo mas'uuliyiin kala duwan ayaa iyaguna taasi la mid u diray maanta waxaan joognaa aaskii marxuum Nuux Xuseen Turub oo ku qaraqmay biyo daadka Dacar Buruq ka qaaday meydkiisana dhowr cisho la raadinayay ninkaas nin wanaagsan buu ahaa muddo dhowr iyo 4 sano waanu isnaqaanay isku ciidan baanu ahayn isku guri isku xaafad soo wada korray adoon aad wanaagsan buu ahaa oo afkiisa adkiisa laga nabad galo samafal badan tiisi baa noqotay maanta ilaahay ha u naxariisto ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo Nuux Axmed Samatar ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo Nuux waxaan ka tacsiyadeynayaa dhammaan qaranka reer Soomaaliland waxaan ka tacsiyadeynayaa asxaabtiisii faraha badnayd ee gurmadka faraha badan leh noogu timi intii aanu maxaan ku dhahday raadinaynay Nuux annaga wuxuu ahaa walaalkayba ahaa qoyskayaga reer Xuseen Samatar iyo reer Kaahin Axmedna odaygayagu ahaa ilaahay waxaan ka tacsiyadeynayaa xaaskiisii carruurtiisii walaaladiisii walaaladiiba waan ka tacsiyadeynayaa ehelkiisa guudna waan ka tacsiyadeynayaa qadar Allah dhacay 4 casho ka hor buu maxaan ku dhahday daadku la tegey saakaa la helay ilaa iyo muddadaasna baadidoon baa lagu jiray waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa dadkii baadidoonkaa nagala qayb galay walaalkay raajicuun maanta waxaanu joognaa aaskii Nuux Xuseen Samatar oo ahaa sarkaal sida ciidamadii Soomaaliya waqtigii la isku oran jiray ka ahaa gaashaanle sare ehel baanu ahayn asxaab baanu ahayn qoys gaar ah baanu si badan aan u sii ahayn runtii waxaan doonayaa inaan ka tacsiyeeyo familigiisii reer ilmo Xuseen Samatar iyo reer Samatar dhammaantiis iyo ehel wixii ahaa oo dhan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hadalka la kaalmoon maayo waxaan leenahay ilaahay naxariistii janno Nuux siiyo samir iyo iimaan dhammaanteen bay ilaahay hay naga siiyo الله ونحرسه مرحوم كنوح
runtii waa xaq waa dariiq la wada marayo inkastuu daad qaaday ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo god baa dhacay ayuu yidhi kaariye god ayaa dhacay ninkan noociisa waxaa waa yaraayeen dadnimadiisa akhlaaqdiisa soo dhowayntiisa ehel jacaylkiisa intaa markaa qof bini'aadmiho kuwaaliska caynkaasana isku darsada aad buu ugu yareeyey dadka innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun marxuum nuux xuseen samatar oo loo yaqaanay nuux xuseen turuub ayaa lagu aasay magaalada hargeysa waxa uu ifka kaga tegay allaha u naxariistee 3 carruura oo kala ah 2 wiil iyo gabadh iyo weliba hooyadood waxaan u dhashay sannadkii 1950 kaasoo ku dhashay magaalada burco innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun